kulanti wacan oo wanaagsan dadka na daawanayo meel kasta oo aad joogtaan halkani waa studio-heena magaalada Minneapolis gobolka Minnesota ee wadanka Mareykanka daawadayaal waraysigani waxaad si toos ah uga daawanaysaan Kelson TV galabta waxaa studio-heena lagu soo booqday oo marti noogu ah studio-ha Maxamed Allabari oo garabkayga bidix fadhiya oo isagu kamid ah macallimiinta muddada dheer gobolkan sida weyn looga yaqaano ee ka soo shaqeysay iskuulada gobolkan Maxamed Allabari waxa uu kale uu kamid yahay ragga ugu firfircoon ee hogaamiyaasha jaaliyada Soomaalida ee gobolkani dhawaan ayuu su'aal ku tagay Somaliland waraysigan waxa uu ku saabsan yahay wixii uu ku soo arkay magaalooyinkii uu booqday iyo waliba arrimihii ugu muhiimsanaa ee uu isha ku soo dhiftay ku soo dhaw studio-heena mar kale Maxamed Allabari dhammaantiin waad salaamantihiin qoladina TV-geena igu casuuntay halkan iyo ummadda daawana soo dhanba waan salaamayaa waan salaamantiin waayahay Allabari xagee ka bilowday socdaalkaaga waxaan ka bilaabay markaan Washington ka duulay waxaan tegay Addis Ababa toos baan dhaafnay ismaanan taagin Hargeysana waan dhaafay Booramaan tegay Booramaan Rabadaantii iyo Rabadaantii baan joogay Rabadaantii iyadoo 7 dhacday baan tegay markaan intii ka hadhay Booramaan joogay Rabadaantii markay baxdayna Hargeysaan ku soo noqday muddo joogo dadka sheekooyin badan dad badan wada sheekaysanay marka xataa meel kale oo far badan waan soo maray laakiin 2 sano badnaa waayahay dhinaca kale ee Ethiopia gudaheeda jigjiga oo kale ma tagtay ama xuduudka oo kale jigjiga diyaar baan ahaan tago in jigjiga dir dabada tago ayaa marka hore qorshaha igu jiray laakiin waqtigii baa si isku boobay Rabadaantii markay baxday marka wajaalo oo aan meeshan ku dhashay oo aanan dhaafi karin ayaan tagay marka wajaale maan dhaafin waan ka soo noqday kala beerka iyo Allah badiyana waa si martay Allah badiyay bidix binaga xigtaan maan gaari laakiin kala beerka waa si maray waayahay aan ku soo noqon Hargeysa dhawaan waxaad ku biirtay xisbiga mucaaradka ee wadani adigoo Maxamed Allabari oo kamid ahaan jiray dadkii marka hore fikirka guud ee sida Somaliland ay wax u maamusho dadka ka soo horjeeday akhiritaankiina waxaad kamid noqotay xisbiga wadani xisbigii markaad madaxdiisii iyo mas'uuliyiintiisa la kulantay maxaa ku baxay horta way jirtay mar hore oo aan Somaliland gabiga ka soo horjeeday oo ku jirin oo dhalinyarada ayaan kamid ahaa markii ugu horeysay aan dhulka tagay aan tagay 2005 yaan xaqaaqa arkay ayaa ay tusay inay dadkani dad walaalo oo meel kala tagayn oo Ilaahay isbaday yahay markaasaan soo noqday dabeetana hadda imikana aanan xisbina ku biirin ilaa hadda ka hor markii ugu horeysay xisbiga wadani baan ku biiray imikana kamid baan ahay laakiin sidee critical na waanu ama dhaleecana waanu hayaa imika kulliyaan waxaan soo arkay wanaag badan ay leeyihiin iyo dib ay leeyihiin boo soo arkay waana ka warami doonaa waayahay marka madaxda ama mas'uuliyiinta xisbigaasi aad la kulantay yaa ugu tun weynaa waxa ugu tun weynaa cidaan la kulmay gudoomiyaha madaxweynaha u filayeen inuu noqdo weliin kasoo central la dooran oo la dooran doono Masar Cabdiraxmaan Ciro waxaan la kulmay madaxweyne ku-xigeenka Maxamed Cali waxaan la kulmay madaxweyne ku-xigeenka kale Saad Axmed Saad waxaan ninka igu cajabta badnaa ee aanu moodid inaan aad isku boodnay fikrad ahaan waxa weyn Yusuf ninka Boobe la yiraahdo waan aad fikrad aad moodid inuu waayahay xisbiga gudihiisa markaad gasho madaxdii ugu waaweyneed aad la kulantay oo la sheekaysatay xisbigii macnaha sidii aad marka hore fikir ahaan ka haysatay iyo markaad gudaha gashay wax farq u dhaxeeyo ma jiro horta markaan xisbiga markaan nimanka la sheekaystay wax alla waxay kaga duwan xisaabta kale marka danta gobolka aan istilaahayd u hadal ay leeyahay ma jirin oo hadii de kulmiyaan ku haystay in reer qori madaxweynihii noqdeen oo goorsidii noqdeen oo baarlamaankii noqdeen oo generaalradii oo dhan kii booliska ciidanka noqdeen wasiiradii manaafacaadka lahaana intii ay yihiin xisbigii aanu angalay markaan weydiiyay nimanka madaxda waxa la yiraahdo ku-xigeenka ama la taliyaha oo inagu halkan aan uga naqano shadow ministers futureska Britole ministerska intii bareerun bay wada noqdeen halkana xisbiga kale wadani iyo kuwa iyo wasido intuba waxa weyn reer bay noqonayaan iska reerkii uu ay noqdeen markaan weydiiyay horta aan ku yiri
annagu uma socono hadda imika inaan wax idin weydiisano ciidan wax weydiisananaa ma jirto sheekadaas waanu ka gudubnay waxbaanu ku darsananaa waxayagana anaga qaadananaa dee gacanta nagu jabiya markaa waxaan qaadanay anagu waxaasaan leenahay dhahno waxaan ku yidhi markaa maadaama ay waxaan loo yaqaano la taliyaasha ama xogayaashu reerkii u yihiin dee aan kulmiyaba ku haysanay marmarna lagu odhanayo dee intiinii cajiibka ahayd hore weli nooma soo marin dee dadkii baanu wadnaa karti wax lehe ma banaynaysi baan ku yidhi dee markaa haddii aadeen aanu dadkii baanu imika wadnaaye ma banaynaysiin marka hore gartayba dee haddaan laydin iman ciddii markaa shaqaysanaysa meesha joogtay in lagu buuxiyo intuba waxay isku raaceen inay ugu yidhaaheen diyaar baanu ahay inaanu banayno waxaad ku qaadanaysaan karti iyo caqli iyo aad ku qaadanaysaan diyaar baanu nahay bay ugu yidhaaheen waddani laakiin markaan ka soo baxay sheekadan dambe soo baxdayna waa sheeko yaro adag waaya sheekada waan geli doonaa baarlamaanka somaliland waxaa la yidhahdaa waa 80 kursi ama 80 xubnood 24 ka mid ah xubnahaasi baarlamaanku waxa weeyaan gobollada hareeraha ee aad ka sheekanaysay waxaa jirtay in la sameeyo oo qorshe u ahaa tirakoob guud ahaan lagu sameeyo gobolka oo dhan ama dalka oo dhan tirakoobkaasina lagu eego in markaasi sad loogu daro ama xubnaha baarlamaanka loo kordhiyo qolooyinka hareeraha arrintaasi lama sameynin tirakoobkii dhowaan ayaa guddoomiyaha baarlamaanku ahna isla guddoomiyaha xisbigaasi aad ka tirsan tahay ee mucaaradka waddani kulankii baarlamaanka waxaa lagaga hadlay qodobka imikaanu ka hadlayno waxaana la abruuf gareeyey ama la meel mariyey in aan waxba lagu darin iyadoon tirakoobna la sameynin 24koodii xubnoodun ay ahaadaan qolooyinka hareeruhu laakiin arrinta la yaab kale waxa weeye aan doonaya su-aal kaa weydiiyo gobollada hareeruhu ee 24 kursi loo qoondeeyey doonayana in loo kordhiyo kamay soo qaybgelin ama kumay jirin shirkaasi waana salugsanaayeen marka guddoomiyihii baarlamaanka haddiiba uu ka soo horjeedo in dadkan aad adigu ka tirsan tahay kuraas loogu daro xubnaha baarlamaanka iminkana uu guddoomiye kale kugu yahay xisbigaagii waddani maxaa difference ka jira muxuu yahay waad mahadsan tahay horta waan ogaa waxaan xaqiiqadaasi kulmiyey ka jirtay xasiibad kalena ka jirtay anigu waxaan xisbigan u galay maaha wax xaqiiqo imika aan ku ogahay wanaaga inaan bedeloon wanaag ka dhex sameeyo ayaan ugu talagalay anigu xisbiganna dee hal khalad ama laba khalad ay sameeyeen kagama tegayo waxaan weli isku dayay inaan wax ka bedelo waxaan rabo aan ku guuleysano groupka iyagani raba inaanu isbedelka sameyno laakiin nimankii noo madaxda ahaa wixii aan isnidhi hadalkoodii quruxda badnaa ay igu yidhaaheen weliba dayana kuwa kale ku darine guddoomiyuhu hadalkii quruxda badnaa isla aragnay ficilkiisu qurux ma lahayn wuu fool xun yahay waana ku condemn garaynaya hase ahaatee ma aha waxaan waddani kaga tegayo waxaan ciro kaga tegayo midna maaha waxa weeye qofku inuu anugu horta dee qof bili aadmi aan la xisaabtamayay marna mayna ilaahay baa ilaahay baa wax saxa oo perfect sameeya anigu maalintii walba 10 goor baan khaldaamaa intay ugu yar tahay de markaa khalad walba haddii lagu ciqaabo goor hore laga diri lahaa meel baas bili aadmigaas uu isaguna ka mid yahay waan ogaa inuu cirrana bili aadmi yahay hadda laba khalad oo fundamental ayuu sameeyey oo uu gobolada ku sameeyey waliba gobolkan aan anigu waa guddoomiye cirro laba khalad oo fundamental ayuu sameeyey kow isagu de amarka ma lahayn inuu magacaabo laakiinse markii hogaamiyayaasha guddiyada baarlamaanka la sameynayay ree awdal 0 buu ka dhigay isagu de inuu ka dhigay in heli waayeen warka laakiinse de uu lahaa influence uu ku lahaa markaasi waxaan arkay ogahay inay 0 la taliyaasha yani guddoomiyaasha baarlamaanka inuu ku jirin ma iyaga dadaal waay ma iyaga karti darro ku waay mise isaga qudhiisa u hagar bixin ayaa meesha taal mar labaadkii waxa dhacday markii la ridi lahaa cirro la ridi lahaa ee loo soo fadhiistay kulmay u tashatay xildhibaanadii ree awdal ee kulmi iyo waddaniba lahaabaa maylo hor joogsado u gurmaday marka isagoon wax u dhigan marka hore cirro ree awdal ayay sidan ugu gudin badle mar labaadkii imika ayaa intuu la isku ay yidhaaheen war wuxuu ahaa waxaan in marun loogu galo oo la sameeyo census de waxaan rabnaa qaybsiga in la hagaajo ayaa wuxuu u joojin waayay hareeraha
in xataa bal war loola tago la maslaxo ayuu miyuu isagu kartida lahaa ma qasab bay ku ahayd waan ogahay kulmiye inuu xarig ugu jiro inay ku jiidaan ay rabeen xaqna uu leeyihiin anaguba marka kulmiye hadduu noo galo xarig noo galo waan ku jiidanaa marka inay ku jiidaan xaq bayna oona ku ammaanaya oo muuse iyo faysalba dee abaal baan idinku haynaa waa leenahay intaa yare halkaa aad ka tiraaheen reer qurihii inuu baarlamaankii ka taliyo oo uu taladiisii gaadho waxa sida election reerihii kale hareeruhuna aanay ku jirin inuu muuse iyo faysal ka hadlaan abaal oo nagu haynanaa laakiinse dee muusena waxaan leeyahay war shalay gabadh yar baa la soo xidhay boorma laga soo xidhay afartii oday ee ugu weynaa xurmo iyo xishmo ku lahaa awdal ayaa soo cararay oo yidhi war gabadhan halanoo damiin baan halanoogu sii daayo walaalkeed baa wax qarxiyey baa la yidhi shabaabka iyo dadkaasi reer walba dad way kaga jiraan cid walaalaheed iyo hooyooyinkood iyo aabaheed iyo cid loo soo qabtay ma jiro kuwana markay suldaan dawal dadka loogu ixtiraam badan yahay gobolka suldaan saleebaan oo dadkii loogu ixtiraam badnaa maxamed jaamac samatar oo dadkii loogu ixtiraam badnaa suldaan abshir ayaa yimid oo yidhi war dee gabadhii waa dhakhtar bay ka shaqaysaa waxana shuqul kuma laha had baarataan boo haddii wax lagu helo dee sharcigu waa inuu qabto haddii qofkii dembi lagu helo inuu qabto laakiinse dadkii horeba wax waalidiintood meesha lagu haya ma jireen noosi waa laga diiday foolxumadaas shirkada qarax waxa ku dhacay markaa xamar tii ka dhacday xamar ka dhacday marka gabadha meesha lagu qabanay Hargeysa waa Boorama walaalkeed baa ku jiray baa la yidhi meesha dadkii wax qarxiyay marka wax la doonay xamar loo gudbiyo ma in halkan lagu hayo la qabso runtuna waxay tahay ma wixii khayaali mise wixii runa runtu waxay tahay waxa loo soo qabtay Ethiopia la hadlayay oo la leeyahay Ethiopia terroriskii dadka waxa qarxiya awdal bay ka imanayaan arka Ethiopia dawlad qadiim oo aad u xoog way ogtahay cidda u cadawi cidda u walaali cidda dhibasi cidda dhisa habeen bay ku qaban lahayd Ethiopia wax walow ka dhacay dhulka way ogtahay wax ka qarsoon ma jiro laakiin waxaad moodaa mar hub ila copy of 91 meel la geliyay inta la soo saaray la yiri dad baa laga qabtay imika soo la yimid in wax ku dagaalamaan iyo gabadhan oo fart in lagu fiiqayo farta Ethiopia waa ka terroriski halka awdal buu joogay Ethiopia way ogtahay hadda marka fool xumo weeyaan in dadkii Somaliland qaarna la riixo cadow loo geeyo dib la geliyo qaarna la asturo oo xataa iyadoo la og yahay aan la hadal qaadin gabadha hadda ma xiranta wali mas'uul siida gabadha hadda markii hore afarta oday way joogeen hotel baan ku wada jirnay iyagoo fool xun oo murugaysan oo hoos u foorara oo ninkii booliska ninkii haystay meesha soo eriyay ayaan kula ayay meesha joogeen hadda waxa la leeyahay shalay ama daraad ayaa gabadhii la sii daayay ayaa la leeyahay marka muuse waxaan ugu dari lahaa muuse arrintan imka heelkan aad noo helisay waad ku mahadsantahay dee tanna shalay bay ahayd laakiin dee anugu oppositionka qolada naga soo horjeeda kuma haysto markaan anugu khalad galno inay nagu yar ciijiyaan annana saamaan sameeyay waaya aragtida dadka ku dhageysanaya ama ku daawanayo kale maxamed Allabari markaad sawirtid baarlamaankii Somaliland ee 80 kursi ahaa oo 24 kursi oo gobolada hareerihi ay ka maqan yihiin ay gobolada ama beesha dhexe ay shirto go'aan ay soo saarto lagu dhaqmo oo dalka lagu dhaqo meel la arkin Somaliland inay tahay dal markii hore ku hanweena in la itiraafo oo wax la wada qaybsado oo sadbursi aanu dhicin oo dadku gacmo is haystaa ay dal gooni oo Soomaaliya ka go'ay markii hore ku hanweena ay sameystaan hase yeeshee markii la itiraafo waay muddadina ay dheeraatay ay isugu ururtay qabyaaladii iyo beel qura in ay markaasi intayadan bariga iyo galbeedka ee Somaliland taan ka cararna waa wax la wada leeyahay يعني خلاد ويجيران وان صح أنا وهاكسنا تي أيام لنقول سي عضينيا إنه رار قولي ثلاثة بجاري كرو أو كوا كلا جمار مكرو مركا عراء كلام كوحن لاهي هدو عراء نتوسو نمتوسين مناركو ده هل خلاد ما لا خلاد نقف لو حكومي كرنا ماركو وحن كسوجنا عراء إنه كفا وواحد بالآدمين معه إنه خلاد ما وواحد بالآدمين معه لابد يبودعين وحنو إيجنا سيدو كفيدا أو جكعه iyo apology oo ka bixiyay inuu ka raali geliyo umada uu gafay uu yiri relevant ba ma tihdin muhiimna ma yihiin vote-kiinu qiimo ma laha ku yiri hadda dadka vootay badankood waa kulmiye laakiin sida ninkii waa madaxun baa la haystaa oo imika wixii ka dhaca kulmiye Siiraanya lagu haystaa isaguna ku haysanaa in kasto yahay gudoomiyahaygi aan taageerayo ilaa hadda aan sugayo waxaan se sugayaa bal sidoo kufida uga kaco uga jawaabo ayaan suganaa
hadduu naga maarmana taanana waanu sheeganaa inaan ka maarmi karno dadka markaad indhindhaysid saddexdan xisbi xisbiyada qaranka oo laba mucaarad yihiin oo xisbiga imika aad ka tirsantay wadani uu ka mid yahay iyo xisbiga kale ucid mujtamaca somaliland yaa isleedahay bay u badan yihiin oo ay xiiseynayaan xilligan horta nasiib darrada jirta dhulkaasi waxa weeye mabda iyo caqli xisbiyadii lagu maraacayo dhulkeenii labaa lagu raacayaa mid waa reer baa horta dadku badankooda ku raacayaan talabaad ee kasii muhiimsan waxa weeye wixii hore jiraa la nacayaa waad ogeyd reeyaaladaysa markii la nacay in lagu bedelayay aan siiraanyo laakiin muu dhaama iyo muu ka wanaagsan yahay isma imika wada cabaadayna leeyihiin waar bilo malaha kii hore haddaan sheeko imika marka kulmiye sidii halkii riyaalu maraya oo imika haddaad aragtid gobolada oo kale marka ujeedada waxa weeye xisbigii kulmiye ayaa khaati laga taagan yahay marka mid kastoo kasoo horjeeda waa la wada gelaya waxa la wixii kasoo horjeeda marka opportunity badan baa u bannaan u cudiyo wadani maadaama kan la arkayo ceebihiisii kuwana ceebahooga ay qarsoon yihiin uu future yahay imika la arkaynin wuxuu ku tala wax noqon doonaan kan haddii la diidan yahay labadanba opportunity bay leeyihiin inay ka faa'iidaystaan oo ay yidhaahaan waan ka duwanaananaa laakiin tallaabooyinka qaar marka waxa la yidhaahaa futureka qofka haddaad rabtid inaad ogaatid baaskiisa akhri wixiisii hore akhri marka waxyaabo badan baan akhriyanaa oo hadda la qabtay mana sugano maalinta madaxweyne uu noqdo wuxuu samayn lahaa waxaan anagu ku tashanana oonu ku taageeri dhaqaale ahaan iyo dad ahaanba aniga oo wadani ah oo ilaa imika kale waan ogolahay wadani oo dee dadkan la soo kulmay dad cajiib qurux badan oo fikradooda iyo caqligooga aan midnaba aanan dee aanu gaari karaynin ayaan soo arkay dadkii laakiin hadday khalado noocana sameeyaan dee wadani ma guulaysanano waxaanan bal suganaa muddadan yara degdega ah sida ciro iyo wadani ay uga jawaabaan xadhigaa loo qabtay ee iyagu ay galeen afkaartaadii aad u geysay xisbiga wadani ma ku soo dhaweeyeen alla baryo aad bay soo dhaweeyeen shay qura oon isku diidna ma jiro laakiin aniga waxay muhiimkii maaha hadalka maaha waxay muhiimka waa ficilka hadallo qurux badan waa isdhaafsanay dee ficil fool xun uu ka dambeeyey ficilkan aniga ii muhiima maaha waxa actionka ay sameeyeen ayaa muhiim ah boorma markaad tagtay maxaad ku soo aragtay xagga nabadgelyada iyo xiisadaha rabshadaha wata inta badan ka dhaca gobolkaas horta rabshad jirta waa iska yartay rabshad ma jirto dadkan xataa Soomaali oo dhan meel joogtaba way soo gubatay way daaleen waxa dabkan iyo xan qof bil aadmi meel isku yimid qof ama laba dhib aan la arkayn ma jirto rabshado badan ma arag hawl badan ma arag waxaan arkay abaaro badan iyo faqri uma arkay laakiin wax rabshado wada oo bilaayo wada ma arag laakiin marnaba dawladdu inay rabto inay sidaa la sameeyo oo ay rabshado dhacaan ayaad moodaa inay provocaynayso marka marba soronaysa malaha siyaasiyiintan waa cajiib short term kan inay xukunkan ku sii kororsadaan iyo inay ku joogaan baa ugu muhiimsan Somaliland inay guulaysato oo la ictiraafo oo ay wax ku noqoto ayaad soronaysaa oo de qofkii aad u aqoonin dadkan shikma ku galaya waxa jiray dhaqdhaqaaq military oo dhinaca buuraleyda gobolka Awdal ka jiray oo hogaaminayay Sultan Wabar saameyn inta leeg bay ku leedahay dhacdooyinka xagga amniga ee ka dhaca gobolka amni ahaan khatar ma arag laakiin dareenka dhulka degani aad bay ugu taageersan yihiin dareenka uu qabo Wabar ay frustrated bay ku yihiin saami qaybsiga gobolkooda in xukunba ku lahayn badana oo lagu dul xukumayo xataa hadii way dadku frustrated bay ku yihiin laakiin nabadgelyo ahaan wax dhiba oo taagan ma arag laakiin waxaad moodaa dawladdu inay qasbaso inay dhibi dhacdo oo ninkana reerkii ka dhashay Wabaraho la soo qabanaya kana reerkii Wabar ka dhashay la soo qabanaya marka shan ay ilmaadeen ahayn ama walaala ahayn oo shuqul ku lahayn baa daacadon isaguna tagaya marka Soomaalidu waxay tiraa qof weyn tag lama ilaahay wuxuu tagaa la tusaa marmarba moodaa dawladdu inay iyadu riixasay leedahay ba ma dib gashaan malaha waxaan u maleynayaa hadii dhibi dhacdana de election sharciga sheegay constitution ka sheegay ma dhici karto doorasho hadii ay dhibi dhacdo marka waxa laga yaabaa inay dawladdu ay short termka dani ugu jirto inay dhibiyo dhacdo ku sii yar joogaan ayaad moodaa sida loo kordhiyo waxa tii weyneeda ictiraafkii iyo in wada noqdo dhaqaalaha adduunka yimaado taasa ka muhiimsan ummadana taasa uga ardayda faraha badan leh ee ka qalin jabiya jaamacadaha gobolkiina Amuud ay ka mid tahay marka ay Hargeysa u shaqo tagaan oo kale xagga shaqooyinka marka ay eegtid gobolkiina saami inta leeg ayuu helaa de horta meel uu ka yimidayba qofkii nin garanaya meel jooga ayuunbaa wax helaya marka wasaaradihii sida yihiin markaan ognahay cid helasna waa iska kaleer
ya waastay ku xidhantay marka wastay ku xidhan tahay adoo shahaadadaadii aqoontaada wata ha dadkii wada baahan ka ku dhow gaajoon iyo darkaysa hadda baad horta soo dhanaysaa ilaa kana gurigaagii fadhiyo oo hurda marka waa inaad buur ku tiirsantahay buur waan ku tiirsanaatay waaya buurihina way yaraadeen oo dhowr buurood bay noqdeen dhowrtii buuroodna reer baa fadhiya waaya aynu ka gudubno haddii aynu gudagalno isla magaalada Hargeysa oo iyana muddo joogtay markii dambe la soo martay waxa ka jirta sida wararka ay sheegayaan biyo la'aan xoog leh oo saameyn ku yeelatay shacabka ku nool magaalada Hargeysa biyo la'aantaasi ma ku muuqatay intii aad joogtay magaalada ha waxaan arkay booyado anu dhulkaas galbeedkan ka imanay Gabil iyo Arabsiyo Wajaal iyo Boorami baan ka imanay booyadaha ka soo qaaday biyaha Arabsiyo transportation-kii bay khatar gelinayaanba oo iminka traffic baa ilaaliyeen si aan dadka u jiidin ilaa waxay ka gaarayaan reer biyala oo biyo la cararayaan bay ka gaarayaan marka biyo la'aan xad dhaaf ah ayaa jirta qayb dawladdu wax kuma laho waa taa ilaahiyada ilaahay keenay roobkii oo yaraaday biyihii hoos oo guray numberka magaalada ku nool aad u xad dhaaf ah ayaa waxa keenay laakiin waxa ka maqan meeshan guriyihii wixii dadku private-kii lahaayeen aad bay qurux badan yihiin oo way shidan yihiin wixii public-gu lahaa ee ku biirin lahaa ama caafimaad ama education ama jidadka ama biyaha ama wixii public-ga waxaad moodaa meel walba inuu ka maqan yahay oo waliba Hargeysa u roontahay sida alla bariyo sidee u aragtaa in dhibaatooyinkii Soomaaliya inta badan ka dhici jiray waqtigii dawladii dhexe ee Maxamed Siyaad Barre dadku waxay ku xidhnaayeen caasimadda dabeetana caasimaddii baa waxay la ciireysay dad aad u fara badan shaqooyinka sida aad sheegaysid waxay wada noqdeen waasto markaad u compare garaysid ama aad barbar dhigtid xaaladda imika ka taagan Somaliland oo kale iyo guud ahaan Soomaalida kale Hargeysa waxay noqotay magaalada qura ee reer Somaliland oo dhan goboladooda ay ku soo ururaan ama shaqooyin ama waxbarasho ama deegaan ba noqotay dhismaha magaaladu waa isku raran aad isu dhex yaacsan aadna u koreeyo oo dadku ay ku soo badanayaan magaalada ma isleedahay dhibaatadaasi waxay keeni karaysaa tii ka dhacday Muqdisho oo kale marka dadku ay caasimad qura ku soo ururaan oo hal magaalo noqoto meesha qura ee shidan dhinaca kale markaad ka eegtid ma isleedahay biyo la'aantu waxay noqon doontaa mid ka sii darta oo laguma sii jiri karayo in biyo un laga raadsado booyada Arabsiyo iyo Gabil ma deeqi karto population-ka dadka Hargeysa ku nool sidee u aragtaa muuqaal ahaan sawirkan ku sawir horta ajaayibka waxa weeye wixii Siyaad Barre laga cabanayay ee laga yaacayay in Hargeysa imka laga dhaqmaa waate nin madaxweyne aad boqor moodido wuxuu yiraahdaa Quraan yahay laba dhaqan oo aanan Soomaalida ku ogaan jirin hore uga ogaan jirin baan labadiiba ku soo arkay Soomaalidu iscaabudaada ma ilahayn dad isku kalsoon oo qof walba isku kalsoon yahay baan arki jiray hadda laba shay baan arko aad u fool xun qofkii wax haysto la caabudo iyo qofkii xukun hayo la caabudo oo dadka marka yaani guulwadayn xoog leh guulwadayn xadaafa oo aan xishoodba ku jirin ayaan soo arkay oo marka ama madaxweynaha la iska dhisayo ama mas'uuliyiinta kale ama mas'uul oo dhan la iska dhisayo si ama ilmo loogu geeyo shaqo ku helo marka waxaad waad ogtahay dunida saddexaad ba iska sidoo Mexico oo 60 milyan 22 milyan baa caasimadda ku nool 1/3 baa ku nool maanta waqooyigu 3 milyan bay sheegtaan 1 milyan iyo bar baa ayaa caasimadda ku nool yani half in la yiraahdo Hargeysa ku nool yihiin waa fool xumo waxyaabaha wadani haddii aan ku guuleysano aan ka wada hadlanay aan ku darnaaleenahay waxa la in federalism in decentralized gareyno oo gobol walba wuxuu ku wanaagsan yahay oo ordo xataa wasaaradaha la geeyo gobolada la geeyo imika reerihii intiina qolidina barigu anagu inkastoo Hargeysa tahay waa la isku kaya xataa galbeedkiina waxiba haystaa la yiraahdaa oo waa run oo idinku dhowr boqol oo mayl baad u jirtaan oo hatta kama soo gaaraysan hadda anagu laakiin waan haddaan lugayo waan ka Hargeysa waxba ka soo yar qaadan karaa waan u dhowahay laakiin waxaan anigu oran lahaaba war intaad la leeyahay maanta halka meel kale ayaan hagaajinanaa meeshii hagaagsaneed waan joojinanaa wax qabsanaysay warniyo gobol walba la sii daayo oo dadku ha xukumaan dadka la xukumaan hal la barotamo waxa bay keeni kartaa goboladan galbeedku khayraad fara badan bay leeyihiin waa dhul isku dhow waxay keeni karaan in tahriibka laga maarmo halka loo shaqo tagay ma la sii daayo inay balaayo ka laysteen ayo ka talino ninkii la doortayba uu tala lahayn meeyaradii tala ma laha nin la soo magacaabay oo ninka la soo doortay baraha lagu ridib isla odhanaya nin la soo magacaabay
oo lagu soo magacaabay meel walba ka jooga gobolada dhan jooga waxaan oran lahaa governor kan hala doorto isaga qudhiisa dadku ha doortaan haddii aan governor kala doorana qofka dadka talada ka gooda ha ahaato meeyarada iyo the council kan la doortay ee u habranayeen bari leeyahay kara noqoto gobolada haddii si loo wada daayo xirgabo oo meelaha ugu barwaaqada ugu quruxda badan leh burco iskuul baan ka jirin iskuul baan ka jiro waa meel dhis cajiiba gobol walba haddii la daayo waxaan rumaysanahay in horumar cajiib iyo qarxi lahaa oo lagu soo qaxeen Hargeysa iminka Hargeysa markii hore lagu soo qaxay Hargeysa markii buuxsantay haddana dib baa looga soo qaxwata Liibiya iyo badaha la isku daadinayo dadka la sii daayo dadku ha is xukumaan haddii madaxweynaha Siiraayo inaan ka yara ceerigaabo iskuulka laga yeeriyay loola imanayo inanta yara an awdal an askariga isqabsan loola imanayo goormu faqad shaqadii kala dawladeed qabanaya ee loo igmaday ayuu qabanba ayaan islaahay marka waxa jira centralization kiisiyaad barre haduu ka badnayn la mid ayaa jira waa calaamad inuu saddexaad nasiib daro waayahay aan inagoo marayna gabagabadii waraysigeena maxamed alla bari guud ahaan su'aal kale aan ka horeysiyo oo tilmaamaysa ma soo aragtay ma sabooqatay ama isha ma soo marisay horta madaxtooyada Soomaaliland may leeyimana yeedin leeyimana azumin anna uma baahan manaan tagin wuxuu yahay warkaad ka haysid in gudoomiyaasha gobolada ku hadda aad ka sheekeynayso oo dhan iyo wasiirada badankoodu ay inta badan ku xunsan yihiin haydaanka madaxtooyada sheekadaasi waa igu maqaale waan maqlay inta ka runaayeen kale halka uu dhigta la joogo Haile Selassie ayaa markii abaartii dhacday 1974kii ayaa waxa ka soo bilaabantay Deqoondar iyo halka waxaan ogaaday markay gurigeyga hortiisa soo gaareen dadkii wasiir wala u tagaa horta marka xukunka la yeeshay xukunku dhibtu waxa weey dadkan ku imanaya waxaad rabtay in ay ku sheegayaan waxa ma jira afar baa waa baabada bal waxaan u maleynayaa madaxdan meesha joogtay inta u tagaysaa waxay rabaan buu sheegayaan dhibaha dhulka jira buu sheegay mana ogana ugu dambeyntii dadka aad xisbiga imka aad ku biirtay wadani ama guud ahaan Soomaaliland ha noqoto maxaad soo jeedin lahayd shacabkii aad ka timi ee soo boqotay iyo meelaha aad gaadhay shacabkii horta waxaan soo jeedin lahaa in gobolkan awdal ee dadkiisa horta aan u hadlayo waxaan soo jeedin lahaa badbaadadiinu kuma xidna dawladda iyo Siiraayo badbaadadiinu opposition-ka iyo cirro kuma xidna badbaadadiinu Faysal Ali Waraabiya iyo Jamaal kuma xidna badbaadadiinu waxay ku xidhan tahay idinkoo arka xooggiina iyo quwadiina kartidiina isku geeyo waxa doontaan samaystaa mid kale aan ku darayaan iloobine baasha ayaa maalin wuxuu yiri constitution-ka hal la bedelo waa ku goboladu lahaa qoladan hareeruhu lahaa hal la bedelo hal sad boorsi madaxweyne ku xigeenka laba madaxweyne ku xigeen la dhigo baashe horta deewaanin baashe waa gudoomiye ku xigeenka guurtida baarlamaanka weey marka baashe de ma aqaano xeeban ka sheega ma aqaano laakiin sidee waxaan u sheegayaa war meeshan madaxweyne ku xigeenka dhowr iyo 20 sano ayna waa laf aan hilib ku jirine hilibku meel buu yaalaaye laftan waxba soo eegine madaxweynaha noqon kartaa laba madaxweyne noqdo laba guurti Jerman hala noqdo laba bala intaad halkan xabad laftan mudaanu hayni wax hilibi kuma saarna way qaawan tahay walaf cado toobin lagu hayo way qaawanta toobin lagu hayo marka waxaan ku oran lahaa baashana waliba imika waxba leeyahay reerkaaga waa hoos isku dirasaayo aad haystee imikana bari iyo galbeedkana midna waxba haysan ha isku sii dirin dabka isku dirin waaya xukuumadda haatan taagan ee ka talisa dalka iyada maxaad talo soo jeedin lahayd xukuumadda waxaan soo jeedin lahaa idinka ayaa chance-kii haysta dadkan aad ku kasban lahaydeen aad kaga wareejin lahaydeen wadani maanta sida loogu waxa tustaan in ay cadaalad laba shay ayaa dadkan ku cadaalad iyo nolosha oo dhaanta maanta waqtigii caruurtan iyo dadkan loo sheegi lahaa nabad baad haysataan way dhaafeen dadkan 30 jirka ilaa da'danihi nabadda way ku dhasheen wax kala ha loo keeno cadaaladna ku dhaqma waxaan isweydiinayaa madaxweynuhu waxaan ma og yahay ma loo sheegaa ma karaya laakiin inuu fahmo xataa qudheeda ma fahmi karaya ayaan isweydiinayaa marka horta ummadan yeenan de ka boodine ummad qurux badan naxariis badan dadnimo badan la wareeriyay laakiin soo madaxii wareerisay ayaan arkayaa ummadan laakiin dad wanaagsan yihiin oo isku naxariisanayaan wax wada cunayaan alla bari waxaan inta badan maqlaa Soomaaliland marka dad badan aan waraysi ka qaado waxay hadalkooda ku soo daraan hadal imika ku jiray hawraartan ugu dambeysay aad sheegtay waxa weey hadalkaasi inta badan waxay yiraahdaan tolo hadalkan
waxa wadanka ka dhacaya ama Somaliland ka dhacaya waxaan u maleynaynaa madaxweynuhu inaanu ogeyn ma waxa jira tuhun ah in hadalkiinu cid ka sokaysa madaxweynaha uu ku dhaco oo aanu dhaafinba tuhun baa jira aad u fara badan waqtigii siyaad barre oo accident ka galay wixii ka dambeeyay waa la ogaa waa la sheegi jiray tala badan gacanta kuma hayn iminka tuhun badan baa jira inuu waxba ogeyn oo wixii loo geeyo ninkan laakiinse dhaqanka dadku ka sheegay waa nin decent oo human oo qurux badan buu ahaan jiray iminkana yahay ayaa la leeyahay laakiinse dhaqankiisii cadaaladii iyo wixii kama arkano meeshii marka ma wuuna ogeynba ma wuuna ogaan karinba oo maba jirto kartaasaan jirin ogaashaa waxba khaldan mise waa la isaga qudhiisa ayaa la mu isyeelaya mise waa la wareeriyay marka labadaasi nooma cad way aad iyo aad baad mahadsantahay waa hagaag daawadeel intaasi ayaan ku soo koobayaa waraysigaasi xiisaha leh ee aan la yeeshay Maxamed Allabari oo dhawaan ka soo noqday socdaal uu ku tagay Somaliland Maxamed Allabari waxa uu dhawaan ku biiray xisbiga mucaaradka ee wadani tan iyo kulankeena dambe daawadayaal barnaamijkan oo kale ah ama waraysi kan oo kale intaan dib u kulmi doono waa Cali Xalaadho dhamaantiin ba idinkaga tagay sida iyo nabad geliyo aad iyo aad baad mahadsantahay